waxaanu halkan doonaynaa inaan ku shaacino waan ognahay in dhibaatadii halkan suuqa waahen ka dhacday inay meherado fara badan oo suuqan ku yaalla ay sababtay inay xidhnaadaan duruufta ayaa khasabtay in meheradaasi xidhnaadaan waanu jeclayn in meheraduhu wakhtigan ka horeeya in la furo dood badan markii la galay ee guddiga heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheen dawladda hoose wasaaradda arrimaha gudaha markii laysu yimi waxa ee laysogol tusaaleeyey duruufaha ku xeeran in suuqan dib loo furo waxay guddigu go'aamisay in dhammaan meheradaha waddada jidka wadnaha kaga soo jeeda waqooyi in la furo laakiin waxa reeban in wax baabuura ama kaaryoona ah ama nooc kasta oo ganacsi ah in waddada lala dhex yimaado waxay guddigu oggolaatay in meherad kasta oo ka soo jeeda dhinaca waqooyi kaga soo jeeda jidka wadnaha in la furo oo qofkii lahaa uu furan karo hagaajisan karo nadiifsan karo qofkii u soo galana wax ka iibsan karo laakiin jidka hormara jidka wadnaha aynu dhex taaganay hadda waxaa ka reeban baabuurta waxaase loo ogoliyay dadku inay iyagoo lugaynaya soo galaan oo ay ka adeegtaan haddii ay adeeg ka qabsanayaan sidoo kale waxaa iyaduna guddigu isla garatay jidka ka taga telesom ee hormara hadiya ilaa uu ka gaadhayo halkaa iyo mataqaanaa basbaas iyadana wixii sekadda ka soo eegaya dhinaca galbeedka iyadana way furan yihiin way ganacsan karaan qofku meeradiisa ayuu hagaajisan karaa dadkuna iyagoo lugaynaya ka adeegan karaan isla waddada iyadana waxaa ka reeban wax baabuura inuu soo galo wax baabuura inuu maro ciidamada amniguna waxay ku amran yihiin gawaadhidu inaanay mari karin inaan la dhigan karin kaaryoona inaanu iman karin meherad inaan laga dhex furan karin laakiin qofkii shicbi wuu imanayaa wuu ka adeeganayaa isagoo oo lugaynayana wuu ka baxayaa alaabtuu iibsado isaga ayaa tunkiisa ku qaadanaya waana duruuf wixii meherad ah ee ka soo jeeda dhinaca koonfureed way sii xidhnaanayaan waayo waa meherado biyo badan lagu rusheeyey waa meherad dabkii laga jaray marka iyagu ilaa iyo amar dambe way sii xidhnaan doonaan insha allahu tacaala sidaa maayarku sheegay markii aad loo daraaseeyey assessment badan la sameeyey baahida dadka la ogaaday eegnay maxaanku dhahay rabadaan inay tahay caawa 10kii dhexda u bilaamo lagu jiro dadkuna xilligay wax iibsanayeen ay tahay dad fara badan oo waxa weeyaan guryahoogii xidhan yihiinna ay waxa weeyaan codsi badan ay sameeyeen guddida heer qaran wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin taliyaasha ciidamada booliiska dawladda hoose waxaa la isla gartay sidaa maayarku sheegay jidkaa wadnaha dhismaha ama sekadaha ka soo bilaabma maxaan ku dhahay khayryada halkaana masaajid jaamaca gaadha ee qaybtaa waqooyi ka soo jeeda dhammaantood inay furan yihiin dadkii lahaana inay furan karaan ay wax ka iibsan karaan dadka waxa reebanuun in baabuurta halkaa hadda lagu joojiyey waxa weeyaan khayryada sidaasay u xidhnaanaysaa halkaa miskid jaamacuna saasuu u xidhnaanaya wax baabuurihii ma soo dhex gali karaan dadku iyagoo socday wax iibsanayaan iyadoo la eegayo nabadgelyada iyadoo la eegayo isku socodka dadka iyadoo la eegayo inaanan jaam ayna gelin maxaan ku dhahay shaqada meesha ka socoto oo ah maxaan ku dhahay in la nadiifinayo bacadlihii gubtay ee waaheen oo qashinkii meesha laga qaadayo ay ku jiraan maxaan ku dhahay iskarogooyinkii cagafyadii oo dhan ku jiraan suurtagal ma noqonayso wixii badbaaday in la furo qaybtaa koonfurta ka soo jeeda sekadaha wixii ka badbaaday lama furi karo ilaa iyo nadiifintaasi dhammaato laakiin labadaa dariiq ee hadda maayarku sheegay labadu way furan yihiin waxna ka reebanuun waxa weeyaan baabuurta iyo kaariyoonayaasha iyo wixii kale ee iskarogooyinka dhammaan wixii baabuur oo dhan iyo wixii kaariyooni uu ka reeban yahay